Assalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Halkan waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo safety rules ama waxyaabo loo baahan yahay ilmahaaga inaad barto kuna saabsan badbaadadiisa. Family walba muhiim ay u tahay inay informationkan si fiican u dhageystaan, insha Allah ayna ku dhaqmaan, ilmahoodana ay baraan. Haddii aan nagu cusub tahay subscribe tahay ilaawin, haddii aan nagu soo noqonaysidna waxaan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay soo noqodkaaga. Videoga qayb badan uu noqon doonaa, marka halkan waa qaybta koowaad. Sidaa ogna ilmaha markay yaryar yihiin maanta oo dhan gacanta laga haayaa, maanta oo dhan waa la ilaaliyaa, laakiin ilmaha way weynaanayaan, ilmaha school ay bilaabayaan, already maybe ilmaha school wayba tagaan. Haddii insha Allah waxaan kuu sheegi doonaa aan sameeyay, maasha Allah, hore u soco. Haddii aadan sameynina, hadda kadib bilaabo biidnillah, okay? Waxaan u baahanahay ilmaheena inay noqdaan ilmo horta isku filan. Mar walba insha Allah waxaad ku fikirtaa ilmahaaga inaad u diyaarido inuu independent noqdo, inuu adiga kaa maarmi karo beritoole si uu noqdo qof isku filan. So u diyaari ilmahaaga noloshiisa qaabkii uu u dhaqmi lahaa. Meeshan halka inaa ilmahaaga mar walba connection la sameeyda. Midda koowaad waa taas. Ruleka koowaad waa midaas. Ilmahaaga mar walba u soo dhawaaw. Ilmahaaga mar walba fahan, isku day inaa fahanto, connection wanaagsan la sameeyo, dareemihiisa dareemahaaga ha isfahmaano. Ilmahaaga marka adiga connection wanaagsan kula haystaan, horta waxay fahmi karaan qof kale haddii ku xadgudubkaas inuu khalad yahay. Relationship kasta kale ay samaysan lahaayeen waxay og yihiin haddii uu khalad yahay iyo haddii uu sax yahay, because adigay ka arkeen sida saxda ah. Marka mar walba ilmahaaga haddii uu la hadal, haddii gaajo haysa la hadal, haddii xanuun hay la hadal, ilmahaaga haddii uu rabo inuu kula hadlo mar walba jaanis sii. Ilmaha waxay jecel yihiin markii ay dalbadaan inay kula hadlaan in jaanis la siiyo. Mar walba sidaa sameydana waa mar walba connectionkaaga iyo connectionkiisa si fiican isku fahmaan. Hawl walba haysid waxaa muhiim ku ah ilmahaaga kow inaad ka dhigto mar walba, hawl kasta kalena inay 2 iyo 3 sii noqoto. So waxyaabo muhiim haddii aad leedahay ama telefoon muhiim la wadaag. Waxaa leedahay hooyo hadda kulama hadli karo, laakiin markii aan dhammeeyo kula hadli doonaa. Intii aad ignore garayn lahayd ama iska dhaafi lahayd. Ilmahaaga ha ogaada inaad mar walba meeshaas u taagan tahay oo aad u taagan tahay inaad isaga caawido. Midda labaad, ilmahaaga bar sida jidka loo gooyo. Ilmaha waa iska og tahay mararka qaar ma haystaan waxyaabaha la yiraahdo danger, ma dareemayaan waa halis, waxaan oo kale weli ma yaqaanaan. Mararka qaar waxaa dhici karta adigoo busy ah inay kugu soo aado ama adigoo mataqaanaa wax kasta dhici karo. Ilmahaaga bar aadaabta jidka lagu gooynayo, okay? waa muhiim inay tambartaan waqtiyada la istaagayo, waqtiyada jidka la gooynayo, waqtiyada la fiirinayo nalka jidka green miya mise waa casaan, inay kala fahmaan, okay? Safety rules ilmaha waa inaa fahansiisid. Bidix inay iska fiiriyaan, midig inay iska fiiriyaan, gaariyaal maa soo socdo, okay, hadda jidka ma gooyin karnaa. Ilmaha markay yara weynaadaan way necbiin inaa gacanta laga qabto. Marka waxaa muhiim ah ilmahaaga inay dareemaan inay iyaga wax qabsan karaan. So u ogolaaw inay ku ag socdaan adigoona gacanta ka haynaynin, jidkana ay kula gooyaan. Aadaabtaas markaa barto ilmaha way dareemayaan safetygaas, wayna fahmi karaan insha Allah. Midda saddexaad, ilmahaaga bar waxyaabaha uu ku fahmi karo haddii qof kale isaga bully ku sameynayo. Marka bully maxaa la dhahaa? Bullying marka waxaa la dhahaa marka ilmahaaga ilmo kale u aaga juglaynayaan. Mararka qaar iskuulada ka dhacdaa, mararka qaar bannaankay ka dhacdaa, meelaha lagu ciyaaray ka dhacdaa. Ilmahaaga waxaa bartaa inay muhiim tahay inayna dadka kale iyagana u caga juglaynin. Haddii loo caga juglayn inay qofkaas u caga juglaynayo ayna ka cabsanin, okay? Wayna ilmahaaga isku kalsoon yihiin. High self esteem markay haystaan, qof kasta kale si wanaagsan iskaga dhicin karaan, iyagoona qofka kalena ku xadgudbaynin. Marka muhiim waxaa ku ah inaa ilmahaaga markii uu xanaaqsan yahay, markii uu oynayo, waxyaabahaas oo dhan inaad si fiican ula socoto. Haddii ilmahaaga uu ka mid yahay ilmaha bullying lagu sameeyo ama ilmaha markasta maaragtay loo caga jugleeyo ama si gooniya meel gooniya mar walba lagu kuuso, isku day guriga inaad la sameeydo role play. Role play waxaan ka wadaa adiga noqo qofkii uu maaragtay bullying ku sameynayay, adiga marka isaga bar qaabku qofkaas kaga celin lahaa, isagoonan oynin, isagoonan dagaalamin, isagoo self esteemkiisa ama kalsoonidiisa ay kor u qaadan tahay, okay? Ilmaha mar walba inaan u sheegnaa inayna ka xishoonin dareemahooda inay soo gudbiyaan, ilmaha inayna ka xishoonin
inayna marka qof rabto inay wax ku samaydo inayna ka dhaqaaqin wayna dhihi karaan sidaan aad igu samaynaysa ma wanaagsana iga jooji waynay ku dhihi karaan qofka kaloo iyaga rabo inuu cago jugleeyo ama inuu mataqaanaa corner ku riixo insha allah. ilmaha marka badanaa markay isdagaalayaan xitaa dagaalka iyo waxyaalahaas oo kale guriga la samey adiga haddaa ilmo ooyin badan haysatid ama ilmo maantoo dhan ilmaha kala dilaayo waa inaad fahansiisaa inuuna qof kalena ku xadgudbi karin laakiin xitaa inaad bartaa inaan isaga lagu xadgudbi karin insha allah. videoga kale soo xiga qeybka dambe aan kasii hadli doonaa safety ruleska marka videoga inuu igu dheeraado ma rabo aad iyo aad aa umahadsantihiin. soo qeybta labaad iyo qeybka kale oo soo socda la socda insha allah. videoya badan oo soo duubana gadaal ugu noqda meesha saaran insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.